dhalinyaro casharkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa waxyaabo ku saabsan abka Termagus maadaama casharradeenu ay yihiin kuwa practical ah dhalinyaro badan ay isticmaalayaan kaliya taleefano waxaa muhiim noqotay inaynu dhex gelino cashar ku saabsan Termagus okay ku soo dhawaada daba casharkeena maanta Termagus waa application aynu isticmaalno terminal ahaan kaasoo nagu shaqeyn kara taleefanada Android dhalinyarada isticmaasha iOS ama iPhone waxay iyaguna isticmaali karaan abka Edge abkan Termagus waxa uu ku fiican yahay inuusan u baahnayn inaad root garayso taleefankaaga inkastoo ay jiraan features u baahan routing haddana shaqo badan ayuu ku qaban karaa adigoo root garayn si aad la soo degto abka Termagus waxaad adeegsan kartaa GitHub ama linkiga description-ka yaala kadib soo install garayso markaad soo install garayso waxa ku soo baxaysa shaashadan oo ah meeshaad commands ku qori doonto badanaa command lines-ku way isku dhow yihiin waxa lagu qorayo ee commands ah marka waxaad Termagus ku isticmaali kartaa commands-kii aynu hore u soo marnay Ubuntu sida ls oo ku arki karto fileska iyo directories-ka cd oo taagan change directory oo ku bedeli karto directory-gaad ku shaqeynayso pwd oo ah print working directory oo ku arki karto directory-ga aad hadda joogto si fudud directory waa file tusaalahaan markaan isticmaalayno graphic interface-ka sidoo kale ayaan bedelnaa fileska Soomahan marka rabto inaad file kale tagto saasoo kale intan haddaynu command u bedelno waxay noqonaysaa change directory ama cd inta dooni karno wadna qaybtaas waxay nagu xiga qaybta package management ah Termagus waxa isticmaalaa package si wax loo soo degto tusaalahaan haddii rabto in la soo degto Python waxaad qoraysaa package install Python waxaad sidoo kale isticmaali kartaa apt install Python haddaba maxay kala duwan yihiin apt iyo package okay labadu waxay qabtaan isku shaqo oo waxba lagu soo degaa balse markaad package qorto waxa uu Termagus automatically u sameeyaa inuu update gareeyo package-ka si uu u soo dejiyo version-ka ugu dambeeyay halka apt ama advanced package tool aanu shaqadan ku qabanayn ee aad u qabsanayso oo aad qorayso apt update inta aad soo dejin package-ka aad rabto si kooban waxaad isticmaashaa package okay waxa nagu xiga inaynu Termagus siino permissions-ka uu ku isticmaali lahaa storage-ka si aad u siisana waxaad qoraysaa Termagus setup storage kadibna allow taabo okay waxa nagu xiga text editors Termagus waxa uu isticmaalaa text editors loogu talagalay in wax lagu qoro sida programming oo kale waxaana jira laba text editor oo ugu caansan oo loo isticmaalo Termagus waxayna kala yihiin Nano iyo Vim si aad isticmaasho text editor-ka magaciisa iyo file-ka aad rabto magaciisa tusaalahaan haddii rabto inaad samayso file lagu magacaabo hello oo Python ah waxaad qoraysaa nano hello.python ama .py waxyaguna muhiim inaad qorto file-ka magaciisa ama extension-kiisa sida .py oo ah Python .txt oo ah text file waxayna ugu sii xigayaa sida Termagus loogu isticmaalo networking tools-ka soo ahaan waxaad isticmaali kartaa Bing si aad u check garayso in IP address-kaasi uu soo jeedo oo ma available yahay sidan oo kale ping 8.8.8.8 soo kale waxaad isticmaali kartaa nmap oo aynu hore ugu soo qaadanay cashar ku saabsan sida loo soo degtana waxaad qoraysaa package install nmap okay waxaan ugu dambaysaynaa muuqaalkeenan maanta extensions-ka Termagus kuwaasoo ah extensions inoo qaban kara shaqooyin dheeraad ah sida IPA put float iyo kuwa kale oo badan si la soo degtana waxaad qoraysaa package install Termagus API ama Termagus put waxaa jira commands badan oo isticmaali karto extensions-kan waxaynu iyagoo PDF ah kusoo gudbin doonaa Telegram-keena ugu dambeyn Termagus waa case sensitive oo hab qoraalka saameyn ayuu ku yeelanayaa markaas ka hubi inaad qoraalka si sax u qorto mar kasta fartuna ay small tahay waad ku saddex daawasho muuqaalkan fadlan muuqaalka like saar share na garee si uu gaaro asxaab badan mahadsanid